calanka Soomaaliya kala soco wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay caalamka saacad walba iyo muuqaal mahadsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa toddobaadkan waxa ay u fariisatay dacwad qaabid loo haystay xubno la sheegay inay ka tirsanayeen dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii maxkamaddu ay sheegtay cadeymayn ay ku heshay dambiyada lagu soo oogay xubnahaasi waxa ay ku riday xukunno kala duwan xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa suxufiyiinta la wadaagay go'aanka maxkamadda ka soo baxay bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqday dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal 1 Xuseen Daawud Cali Hafow 23 jir ah ina Xabiibo Cali Xasan ku dhashay Jubbada Dhexe 2 Cabdullaahi Maxamed Axmed Maxamed 34 jir ah ina Raaxo Cali Mire ku dhashay Galgaduud kuwaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiga ah ka mid noqosho ururo hubeysan oo lid ku ah awoodaha qaranka eedeysanaha koowaad Xuseen Daawud Cali Hafow waxaa lagu soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsanaa qaybta tuurista bambooyinka iyadoo la soo qabtay isagoo bamba F1 ah ku tuuray waaxda Tawfiiq 4 bishii 8 2018 sidoo kale laga soo helay guriga uu deganaa eedeysanaha 5 bambo oo F1 ah iyo 2 bistoolad oo Belgium ah eedeysanaha labaad Cabdullaahi Maxamed Axmed Maxamed waxaa lagu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay kireynta guryaha doodeer kadib maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedeysane Xuseen Daawud Cali Hafow oo ka hor qoray garsoorka hortiisa kuna cadeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsanaa tuurista bambooyinka gacanta laga tuuro ciidamada amniguna ay soo qabteen markii uu bam gacmeed ku tuuray rugta booliiska waaxda Tawfiiq 4 bishii 8 2018 sidoo kalena guriga uu deganaa laga soo qaaday bambooyin iyo bastoolado markay dhageysatay maxkamaddu markaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedeysane Xuseen Daawud Cali Hafow la qabtay 4 bishii 8 2018 kadib markii uu bam gacmeed ku tuuray rugta booliiska waaxda Tawfiiq kadibna uu geeyay guriga uu ka deganaa xaafadda oo ay ka soo heleen 5 bambo oo F1 ah iyo 2 bastoolad oo Belgium ah sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedeysane Cabdullaahi Maxamed Axmed Maxamed oo mas'uul ka ahaa in la kireeyo guriga bambooyinka laga soo saaray markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta iyo cadeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeyn laga qoray markaatiyaasha qiraalka laga qoray eedeysanaha koowaad sawirro muujinaya raadka uu sameeyay bam gacmeed lagu tuuray rugta Tawfiiq iyo 5 bambo oo F1 ah iyo 2 bistoolad oo Belgium ah oo laga soo qaaday guriga uu deganaa eedeysanaha koowaad sidaa darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in eedeysanayaal 1 Xuseen Daawud Cali 2 Cabdullaahi Maxamed Axmed ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 Xuseen Daawud Cali Hafow 15 sano oo xabsi ciidan ah 2 Cabdullaahi Maxamed Axmed Maxamed 1 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan wabillahi tawfiiq